بسم الله الرحمن الرحيم وهبين مسبتيه او اي احد سو غليسو 19 bisha Abriil sanadka 2025 oo ku beegan 21 bisha Shawaal sanadka 1446 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada barnaamijka caawaan idinku haynana waxa kamid ah gaga iska cabita Falastiiniyiinta ee Al-Qassam oo ka warbixiyay hawlgal isku dhafan oo ka dhacay Mareyka Gaza halkaasi oo ay ku beegsadeen ciidamada Israa'iil warbaahinta Israa'iil ayaa ka hadashay weerarkan oo lagu dilay laguna dhaawacay askar ka tirsan ciidankooda waxaana kamid ah sarkaal sare gudaha Israa'iil waxa ka soconaya barnaamijyo ballaaran oo lagu dalbanayo in la soo gabagabeeyo dagaalkan aan dhamaadka lahayn ee ciidankooda ay ku leeyanayaan xaaladdu waa sidan sidoo kale waxaynu eegi doonaa falanqayn uu sameeyay General Faiz al-Duwari oo arrimaha militariga ka faallooda oo ka hadlaya hawlgalkan ka dhacay Al-Tufaax galabta ee ciidanka Israa'iil lagu beegsaday Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa duqeymo culus inuu ka wado wadankaasi Yemen dekada iyo garoonka diyuuradaha ee Xudayda ayaa kamid ah meelaha caawa sida xun loo duqeeyay faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa wadahadaladii maanta magaalada Roma ay ku yeesheen wafuudka kala socota Mareykanka iyo Iiraan waxaynu eegi doonaa macluumaadkaasi iyo sidoo kale dib-u-milicsi aynu ku samayn doono 40 sano oo xuma xiriirka Mareykanka iyo Iiraan sheekada ugu dambaysa ee barnaamijkan idinku hayaana waxay ku aadan tahay rumaysa abaha rumaysan waa robot iyo bani aadam tartamaya oo waliba orod ku tartamaya yaa laga dheereeyay yaa se guuleystay sheeko xiiso leh baan idinkaga haynaa qodobkaasina dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii waraha ee soo kordhay intaaynu hawada ku jirno ayaan idinkuga soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha ku soo dhawow shirkadda dhismaha casriga ah ee Golden Country Apartments daaxaadda waaftoo dibadaha maraysay hadda soo deg meeshii dalxiis ku ahaan lay qalbiguna ku degila daartaas ifayso dadku wada jeclaadeen mardocdaada ka carbuuno shirkadda dhismaha guryaha ee Golden Country Apartments waxa ay Nairobi kugu diyaarisay dhismo casri ah oo hadda shaqada lagu wado kaasoo ka kooban dhammaan adeegyada xaafad casri ah looga baahnaa lacagta 24 bilood ayaad ku bixin kartaa haddii aad doonto waa 2 qol 3 qol iyo 4 qol iyo qolka shaqaalaha waxaana uu ku yaalaa xaafadda South Sea wadada Mohoho Avenue kala xiriir ciwaanada iyo adreeska kale ee shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa wadahadaladii maantay magaalada Roma ay ku yeesheen wafuud kala socota Iiraan iyo Mareykanka iyadoo laga wada hadlayo barnaamijka nuclearka Iiraan iyo sidii hoos loogu dhigi lahaa xiisada haddaba aynu qoransan wararka ugu dambeeya ee arrimahani wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay in wadahadaladii uu la yeeshay wafdiga Mareykanka ay ahaayeen kuwa wax dhisaya oo socday muddo 4 saacadood waxaana intaasi uu ku daray in wadahadalo farsamo la qorsheeyay in lagu qabto dalka Cumaan iyadoo loo marayo kooxo qaas ah si loo dhiso qaab dhismeed guud oo heshiis lagu gaaro Araghchi ayaa daboolka ka qaaday in Tehran iyo Washington ay ku heshiiyeen in maalmaha soo socda dib loo bilaabo wadahadalo farsamo oo heer qubar ah Cumaan ayaa dhexaadisay wadahadaladan u dhaxeeya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Abbas Araghchi iyo wakiilka Mareykanka ee bariga dhexe Steve Witkoff wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Cumaan ayaa sheegtay in kulabadii Roma maanta ku dhexmaray Iiraan iyo Mareykanka wafuudi ka socotay ay horseedeen is-afgarad in loo gudbo marxaladda xigta ee wadahadalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Cumaan ayaa sidoo kale sheegtay in wadahadaladu ujeedadu ay ahayd in la gaaro heshiis damaanad qaadaya in Iiraan gabi ahaanba ay ka madax bannaan tahay hubka nuclearka isla markaasna la qaado cunaqabataynta waxayna caddaysay in wadahadalladu sidoo kale ay ahaayeen
kuwa lagu doonayay in lagu gaaro heshiis ilaalinaya xaqa Iiraan ay u leedahay inay horumariso tamarta nuclearka ujeedda nabadeed awgeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Cumaan waxay sidoo kale ku nuuxnuuxsatay in wareegga xiga ee wadahadallada Tehran iyo Mareykanka dhex mari doona lagu qaban doono magaalada Muscat ee caasimadda waddankaasi Cumaan maalmaha soo socda. horey wakaaladda wararka ee waddanka Iiraan laga leeyahay ee Tasniim oo soo xiganaysa xubin ka tirsan wafdiga Iiraan ee wadaxaajoodka ayaa sheegtay in Tehran ay u gashay wareeggan wadahadallada iyadoo leh mowqif cad, waxayna ay sugaysaa in ay qiimayso tijaabiso sida daacadda iyo doonista Mareykanku ay yihiin. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Cumaan Badr al-Busayri ayaa dhexdhexaadiyey wadahadallada, waxaana fariimo u kala gudbinayay labada dhinac oo ku kala sugnaa laba qol oo kala duwan. waxaana la sheegayaa in wadahadalladu ay la mid ahaayeen kuwii ka dhacay magaalada Muscat oo aysan jirin in la soo hor fariistay. cali shamkhani oo ah la taliye siyaasadeed oo aad ugu dhow hogaamiyaha sare ee Iiraan ayaa sheegay in Tehran ay raadinayso heshiis ku salaysan damaanad qaad in la qaado cunaqabataynta lagana fogaado hanjabaadaha lana xakameeyo Israa'iil. shamkhani wuxuu intaasi ku daray in dalkiisa uu galo wadahadalladan si uu gaaro heshiis dhammaystiran, mana ahan buu yiri isdhiibid, laakiin wuxuu caddeeyey in ergeyga Iiraan ee ka qayb galaya wadahadallada Rooma uu haysto awood buuxda. waxaa loola jeedaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. Abbas Araghchi ayaa isagu waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay waddankiisa in dhanka diblomaasiyadda laga faa'iidaysto si loo gaaro isfaham macquul ah oo xigmadaysan. wadahadalladan maanta ay yeesheen wufuudda ka kala socota Mareykanka iyo Iiraan ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyey tan iyo 2018 markaasi oo Donald Trump uu ka baxay heshiiskii ku aadanaa nuclearka ee dhex maray 2015 quwadaha waaweyn waxa loogu yeero iyo Mareykanka iyo Iiraan. waxaana sidoo kale warku intaasi ku daraya in arrimahani ay yihiin kuwa si gaar ah isha loogu hayo. waa hagaag haddaba xiriirka Iiraan iyo Mareykanka u dhexeeya wuxuu ahaa mid xun tan iyo 1979 dib ayaynu u malacsanaynaa warbixin amuurahaasi ku aadan, waxaana soo jeedinaya wariyahayaga Yahya Ciise. Iiraan waxay muddo dheer ku eedeynaysaa Mareykanka inuu faragelin ku hayo arrimaheeda gudaha. sanadkii 1953 hay'adda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA oo kaashanaysa boqortooyada UK waxa ay taageertay afgambigii xilligaasi lagu tuuray ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee si dimuqraadi ah loo soo doorto ee Iiraan, Maxamed Musaddiq, kadib markii uu isku dayay inuu qarameeyo warshadaha saliidda ee dalkaas. afgambigaasi waxa uu dib u soo celiyay talada boqor Maxamed Rida Pahlawi oo ahaa hogaamiye taageero ka helay reer galbeedka. muddo kadib Mareykanka iyo Iiraan waxay noqdeen xulafadii dagaalkii qaboobaa. sanadkii 1957 labada dal waxay kala saxiixdeen heshiis iskaashi oo ku saabsanaa isticmaalka tamarta nuclearka ee ujeedada rayidka ah. tani waxay qayb ka ahayd barnaamijkii Atoms for Peace ama nuclearka nabadeed ee Mareykanka iyo Pahlawi. 10 sano kadib Mareykanku waxa uu siiyay Iiraan matoor nuclear ah oo uraniumta lagu shaqaysiiyo. iskaashiga nuclearkaasi waxa uu sii socday 12 sano oo kale. sanadkii 1972 madaxweyne Richard Nixon waxa uu booqday caasimadda Tehran. intii xiriirka labada dowladood uu sare u kacayay, shacabka caadiga ah ee Iiraan waxa ay la dhibtoonayeen musuqmaasuq iyo keligii talisnimo ka jirtay xukunka boqorka. ugu dambeyntii kacdoonkii shacabkaasi waxa uu horseeday kacdoonkii islaamiga ahaa ee 1979 boqor Pahlawi waa la eriyay, waxa uuna gabaad ka helay Mareykanka. hogaamiyihii kacdoonkaasi Ayatollah Ruhollah Khomeini waxa uu dhisay jamhuuriyad cusub oo diiradda saaraysa ka goosashada reer galbeedka. dabayaaqadii sanadkaasi arday Iiraaniyiin ah oo taageersanaa kacdoonka ayaa xoog ku galay safaaradda Mareykanka ee Tehran. waxa ay qafaasheen 52 muwaadin oo Mareykan ah iyagoo haystay muddo 444 maalmood ah. tan iyo markaas labada dal ma lahayn wax xiriir diblomaasiyadeed ah. Yahya Ciise, HBN Online TV. waa hagaag Yahya aad buu mahadsan yahay. aynu dib ugu laabanno arrimaha la xiriira xiisadda nuclearka ee Iiraan. waxaa la leeyahay haddii Washington iyo Tehran ay isfahmaan, cidda kaliya ee dhulka isla dhacaysa ee caroonaysa waa Israa'iil oo raadinaysay dagaal. waxaana lagu soo warramayaa in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu geed dheer iyo mid gaaban uu u fuulay sidii loo weerari lahaa Iiraan. laakiin barnaamijkii wararka caawa ee saacada ka hor baxay waxaan idinkugu soo gudbinay
xitaa inay suurtagal tahay heshiis dhex mara iiraan iyo maraykanka oo ugu dambayntii keeni kara Donald Trump inuu tago magaalada Tehran halkaasna uu kula soo kulmo Ayatollah Ali Khamenei warkaasna waxaa sheegay diblomaasi hore oo reer Iiraan ah oo lagu magacaabo Musawi ninkaasi oo sheegaya in Donald Trump uu raadinayo nabad si hadalka loo dhigay isla markaasna uu doonayo inuu ku guuleysto abaalmarinta nabadda ee caalamiga haddaba barnaamijkaasi haddii aadan daawan markaa barnaamijkan dhammaysato dib u daawo barnaamijka wararka caawa warbixino xasaasi ayaa ku jira oo arrintan la xiriira waayahay gudaha Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu aad u dhaliilayo Israa'iiliyiinta sida weyn u dhaliilaya isaga ee ku aadan inuusan qaadin tilaabooyin liddi ku ah Iiraan haddaba isagoo goordhaweyta ka hadlay magaalada Tel Aviv ayaa waxa uu sheegay in tilaabooyinka hore u qaaday waa si hadalka u dhigay markii horeba la dhaliilayay gaar ahaan waa si hadalku yiri inuu ka hortagay in Iiraan ay samaysato nuclear oo dib u dhigay 10 sano sida hadalka uu yiri wuxuu yiri way qosol badan tahay in la dhageysto dhaliisha dadka ka hor imaanaya tilaabooyinka aan hore u qaaday si aan u weeqo dibna ugu dhigo barnaamijka nuclearka ee Iiraan haddii tilaabooyinkaasi aan qaadin buu ku faanay Iiraan wuxuu yiri hub nuclear ay heli lahayd 10 sano ka hor toddobaadkii hore hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid ayaa ku eedeeyay Netanyahu inuu baabi'iyay ama lumiyay fursado lagu weerari lahaa Iiraan halka ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Naftali Bennett uu sheegay in Netanyahu ku guul daraystay inuu ka dhabeeyo hanjabaadiisa ka dhanka ah Iiraan hadalladan waxay imaanayaan iyadoo warbaahinta Mareykanka iyo tan Israa'iil ay sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka hor istaagay Israa'iil qorshe weerar ay ku qaado xarumaha nuclearka ee Iiraan Trump waxa uu sheegay inuusan isaga qudhiisa uusan ku degdegayn in la ogolaado weerar lagu qaado Iiraan iyo xarumaheeda nuclearka arrimahan ayaa waxa loo fasiranayaa in Trump uusan doonayn dagaal laakiin Israa'iil waxa leeyahay warkeedu wuxuu u muuqan karaa ismiidaamin oo ah in la weeraro Iiraan waxay wacd ku martay haddii la soo weeraro inay markaasi Israa'iil dukun ka dhigi doonto haddaba waynu arki doonaa arrimahan wixii ay ku dambeeyaan iyo wada hadalladan lagu ballasan yahay magaalada Masqat ee waddankaasi Cumaan waa tahay xagga Yemen aynu eegno waxa lagu soo warramayaa duqeymo culus in Mareykanka mar kale caawa ku qaaday waddanka Yemen warbaahinta Xuutiyiinta ayaa soo sheegaysa in goobaha la duqeeyay ay ka mid yihiin magaalada Xudayda dekada iyo garoonka diyaaradaha 13 duqeyna ayaa lagu soo warramayaa in caawa halkaasi Mareykanka uu ka geystay horey Xuutiyiintu waxay u sheegeen in ay duqeymo kale Mareykanku uu ku qaaday goobo kala duwan waxaana sidoo kale la sheegay in ay korortay tirada geerida dadkii ku dhintay duqeyntii Mareykanka uu ka fuliyay Jimcihii dekada Ras Ciisa waxaana la sheegay dhimashada inay gaartay 80 qof 150 kale ayaa dhaawaca warkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo Xuutiyiintu ay galabta sheegeen in ay soo rideen diyaarad nooca dronka oo Mareykanku leeyahay oo ah nooca casriga ah ee loo yaqaano MQ-9 Reaper waxaana la sheegay in dulhay habaysay magaalada Sanca markii dhulka la soo dhigay bayaan uu soo saaray afayeenka militariga ee Xuutiyiinta General Yahya Saree ayaa waxa uu ku sheegay in diyaaradan la soo riday iyadoo fulinaysa sida uu yiri hawlgal cadowtinimo oo ka socday hawada gobolka Sanca taas oo lagu beegsaday gantaal lagu sameeyay gudaha Yemen wuxuu sheegay diyaaradan la soo riday inay ahayd tii 22aad ee Xuutiyiinta laga soo rido tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza 2023 wahagaag warar kale oo haddana soo gaarayana waxay sheegayaan duqeyn culus inay ka socoto magaalada Sanca wixii warar ay ku soo kordha intaynu barnaamijka ku jirna haddii ay soo kordhaan wararkaasi warar dheerada aynu helno waan idin soo gudbin doonaa haddii kale barnaamijka xulashada wararka ayaan ku faahfaahin doonaa duqeymahaasi wahagaag waxaan u gudbinaa goordhow gudaha Israa'iil oo caawa xaalad adag ay ka taagan tahay tacsiba taal waxaa la sheegayaa in ciidamo Israa'iiliin lagu galay deegaanka Al-Tufaax ee bariga Gaza dhimasho dhaawac ayaa la sheegay arrintan sidoo kale waxa ka hadlay qabiirka arrimaha militariga General Faiz al-Duwari waxa uu sheegay qabiirka iyo wararkii ugu dambeeyay intaan u gudbin aynu ku hakanno qadar haysiina كبروا مركز كدار التقوى قرآن كريم هجادة علوم الشريعة لغة عربية يتربية أولاده هب عصرية أونلاين وحفافة هنا كلا حديد نمبر الشاشة كاغا مغضى soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraada
una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. soo dhowaada mar kale daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida youtube-ka, facebooka, twitterka iyo weliba telegramka. warbixino qoraal ah faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. وهاجد sheekadii xiisaha lahayd ee barnaamijka aynu kusoo gabagabayn jirnay waan iisoo gudbinaynaa ee ku saabsanayd robot iyo bani aadam tartan galay orod waa shiinaha iyo hawlihiisii. sheekadaas oo inoo soo socota laakiin xagga qaza aynu eegno. marayka qaza waxaa lagu soo warramaya caawa inay tahay habeenkii 34aad tani markii dagaalka dib Israa'iil ay u bilowday. waxaana la sheegayaa in duqeymo culus oo dhacay saacadihii lasoo dhaafay in dad badan lagu dilay. maanta oo kaliya 53 qof oo Falastiiniin ah ayaa la dilay. dhacdooyinka dhacay qaarkood waxay ahayn kuwa naxadin leh. hooyo ayaa waxaa la dilay 3 wiil ay dhashay. weliba mid ka mid ah wuxuu ku jiray goob timaha lagu jarto aroos buu isku diyaarinayay. dadkan Falastiiniinta waa dad cajiib ah. duqeyntaasi oo socota, dhimashadaasi oo socota ayaa hadda nolosha caadiga ah la sameynaya. hooyadaasi waan idiin soo gudbin doonaa muuqaalkeeda barnaamijyadeena soo socda. mar allaaliya markii loo soo sheegay in ay geeriyoodeen 3 wiil ay dhashay, oohintii inta iska daysay ayay waxay ku celcelinaysay alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah. arrinta cajiib kale waxay ahayd samadee fiirisay waxay tiri ilaahayow 3daas wiil adiga xaggaaga u soo dir. yacni kalsoonida iyo iimaanka meeshuu dadkaas joogo. waaya sheekaasina taas aynu ku dhaafno. wayna soo socotaa warbixinta ku saabsanayd weerarkii maanta ka dhacay tufaax deegaanka la yiraahdo oo ciidanka Israa'iil lagu galay. laakiin dhanka aynu eegno Israa'iil waxaa la sheegayaa caawa mid ka mid ah banaanbaxyadii ugu ballaarnaa inay socdaan. arrimahan waxaa ku soo beegay maalmihii la soo dhaafay iska caabinta Falastiiniintu waxay soo gudbinayeen muuqaallo ku saabsan maxaabiista Israa'iiliinta ay hayaan. weliba mid ka mid ah maanta muuqaalkiisii baa la soo bandhigay. iska caabintu waxaa leeyahay marka Israa'iiliinta waxay ku hayaan dagaal maskaxeed. telefoon baa loo dhiibay. telefoon caadi maaha, shaqeynaya maaha. waxaa laga dhigaa xaaskiisa in la hadlayo. wuxuu ka sheekeynayaa meesha uu ku jiro. god buu ku hoos jira dhulka hoostiisa. wuxuu leeyahay meeshan aan ku jiro noloshayda halis bay ku jirtaa. Netanyahu iyo Donald Trump adinkaan doonaya inay badbaadisaan halkan iga saartaan. weli wuxuu leeyahay madaxweynaha Mareykanka adiga ballan qaaday inaad ina soo daysid markii aad xukunka imaanaysay oo doorashada ku jirtay meeshaan naga soo saar. muuqaaladaas markay soo baxeen iyo howlgalkii galabta dhacay ciidanka Israa'iil lagu jabiyay deegaanka Al-Tufaax banaanbaxa wuxuu isqabsaday meel walba. haddaba aynu eegno wararka ugu dambeeya warbaahinta Israa'iil ay tabinayso. kumanyaal kun oo qof ayaa waxaa la sheegayaa inay iskugu soo baxeen bartamaha magaalada Tel Aviv. waxay ka soo horjeedaan dagaalka. ururka qoysaska maxaabiista Israa'iil ayaa waxaa la sheegayaa inay ku baaqeen mudaharaadkan ballaaran ee caawa ka socda gudaha Israa'iil. waxaana la sheegayaa inay ku baaqayaan Netanyahu inuu si degdeg ah dagaalka u joojiyo isla markaasna la ambaqaado heshiis rasaas joojina. waxay sheegeen in wasiirka mas'uulka ka ah wadahadalada ninka loogu magacaabo Ronald Darmar uu sheegay in sii dayta qaraabadooda ay qaadan karto 6 bilood. waxayna sheegeen taas inay tahay mid aan la aqbali karin, iyagoo sheegaya in Donald Trump ay tahay arrintan inuu soo farageliyo. waxaana ay dalbadeen si degdeg ah in arrintan wax lagu qabto, iyagoo leh tani ma ahan mid aan kusii jiri karno, qoysaskeena kusii jiri karaan. meel walba caawa banaanbaxyo isqabsaday sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan. waa tahay haddaba aynu eegno wararka ugu dambeeyay. barnaamijka wararka caawa waxaan idinkugu soo gudbinay howlgalkaasi ka dhacay Al-Tufaax oo ciidanka Israa'iil lagu baagsaday. laakiin faahfaahin baa soo baxaysa. faahfaahinta Al-Qassam horta soo hadashay xoogagga iska caabinta Falastiiniinta garabka hubeysan ururka Xamaas. telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu tabiyay in ay baagsadeen ciidamo Israa'iiliyiin ah oo ay sheegeen howlgal isku dhafan. waxaa la yiraahdaa waa weerar ka kooban dhowr qaybood. waxaa la sheegay howlgalka inuu ka dhacay bariga magaalada Gaza, waa bartamaha Al-Tufaax deegaanka la yiraahdo. waxay sheegeen inay baagsadeen taangi iyo cagaf ciidanka Israa'iil ay leeyihiin. sidoo kale waxay sheegeen in jabaaliye ay ku heleen ciidamo Israa'iil halkaasna ay waxyeelo u geysteen. macluumaadkan waxaa ka mid ah waxaa la yiri markii ugu horeysay gaariga taangi ba qarax loo dhigay. markii la qarxiyay taangigii ayaa waxaa ku soo yaacay haddana ciidamo kale oo raba inay badbaadiyaan ciidankii dhimashada dhaawac u soo gaaray.
ayaga laftigooda baa la dab saaray sida warbaahinta Israa'iil ay sheegayso waxa leeyahay inta Israa'iil ay qarsan tahay laba askari baa geeriyooday mid kamid ah waa general raali ahaada mid kamid ah waa sarkaal darajadiisa lama sheegin waxaa leeyahay 5 kale ayaa dhaawacantay sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan haddaba arrintan waxa ka hadlay qabiirka arrimaha militariga General Vice Al-Duwari wuxuu leeyahay hawlgalkan wuxuu ka duwanaa hawlgaladii dhacayay tan Israa'iil markii dagaalka dib u bilowday haddaba aynu eegno falaqayn goor dhawaanta telefishinka Al Jazeera oo ka sii daayay qabiirku waxa uu sheegay in weerarkan lagu beegsaday gaari kamid ah gawaarida gaashaaman ee ay leeyihiin ciidanka Israa'iil hawlgalkan waxa uu sheegay inuu ahaa kii ugu horeeyay ee nuuciisa ah tani markii dagaalku dib u bilowday bil ka hor wuxuu carabka ku adkeeyay qabiirku in ciidanka Israa'iil dagaalkan ay u adeegsanayaan yoolal dhanka xisbiyada ah halkii uu ahaan lahaa yoolal dhanka istiraatiijiyadda macnaha dagaalka waa dagaal siyaasadeed buu ula jeedaa aynu ku soconno falaqaynta Al-Duwari waxa uu sheegay in xaaladda militari ee Gaza ay u muuqato in gaariga mina lagu qarxiyay kadibna la weeraray ciidamadii u yimid inay badbaadiyaan ciidamadii dhaawac ahaa taas oo wuxuu sheegay inay muujinayso in weerarku uu ahaa dabin laba heer ah markii hore la beegsaday gaariga kadibna ciidanka gurmadka la beegsaday wuxuu yiri kani waa hawlgalkii ugu horeeyay ee nuuciisa tani markuu dagaalku dib u bilowday Al-Duwari waxa uu sheegay in dagaalkan uu ku noqonayo xujo ama hawlgalkan qorshihii uu watay taliyaha cusub ee ciidanka Israa'iil Eyal Zamir oo xilka qabtay isagoo leh yoolal dhanka xisbiyada ah laakiin aan lahayn yoolal dhanka istiraatiijiyadda wuxuu yiri qabiirku yoolashaasi wuxuu aaminsanaa buu yiri taliyaha ciidanka Israa'iil in uu markaasi wax ka bedeli karo xaaladda wuxuuna yiri ninkan sababta xilka loogu dhiibay waxay tahay inuu badbaadiyo Netanyahu xukunkiisa iyo isbaahaysiga ay xulafada yihiin dhanka siyaasadda qabiirku waxa uu ku soo gabagabeeyay falaqayntiisa inaanay jirin hadaf dhanka siyaasadda ah ama mid military oo dhab ah oo Israa'iil ay ka leedahay dagaalka imika ka socdo Gaza waxaana uu sheegay in dagaalkan u muuqanayo wareeg aan dhamaad lahayn iyo fulinta yoolal qarsoon oo Israa'iil iyo Mareykanku ay ka leeyihiin in shacabka Falastiiniinta la barakiciyo sida qabiirku uu sheegayo waxa kale oo ka hadlay hadallada isburinaya ee dhanka Israa'iil ka imaanaya oo ah in maxaabiista ay soo furanayso Israa'iil ayna tahay xogaga iska caabinta Falastiiniyiintu inay hub ka dhigaan wuxuu yiri taas u muuqan mayso inay hirgelayso yiri sababta ah xogaga iska caabinta Falastiiniintu waxay og yihiin Israa'iil inaysan xoog ku furan karin maxaabiista iyagoo markaasi aysan go'aankooda ahayn inay hub ka dhigaan wuxuu kaloo soo qaatay tusaale Mareykanka uu soo qaatay wuxuu yiri Mareykanka markii dagaalka uu la galay Vietnam iyo dhaqaaqii Taliban ee Afghanistan intuba waxay diideen inay hub ka dhigaan Mareykankuna wuxuu ku qasbanaaday ugu dambeyntii inuu la hadlo oo heshiis uu la gaaro marka wuxuu leeyahay way og yihiin xogaga iska caabinta Falastiiniinta qori caaradiis in arintu ay tahay waayahay macluumaadkaas intaas aynu ku dhaafno sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay ayaynu soo gaarnay aarab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin haynaa sheekada ku saabsan robot iyo bani aadam tartamaya oo weliba orod wada galay inta aanan idin soo gudbin sheekada barorta muuqaalkan aynu wax yar daawan gaar ahaan orodkaasi cagaha la iskugu been sheegaya oo robotka iyo bani aadamka ay ordayaan waayahay haddaba shiinaha adduunyada waa ka yaabsanaya maalinba waxbuu keenayaa shiinaha ayaa waxaa laleeyahay waxa uu qabtay tartan orod 10,000 oo qof dad bani aadan ah ayaa ka qayb galay 21 robot oo sida bani aadamka kale loo ekaysiiyey ayaa ayaguna orod ka qayb qaatay 21 kilomitir ayaa la ordayay waxaa la sheegayaa robotkan iyo tartankan inuu ka dhacay magaalada Beijing maanta 40 daqiiqo waa 2 saac iyo 40 daqiiqo ayaa la ordayay laakiin waxa leeyahay suurtagal ma noqon robotku inuu ordo walow dadkii ordayay ay u baahnaayeen cabitaan in la siiyo keeg in la siiyo ama doolshe iyo biscuit laakiin robotka isaga wuxuu u baahnaa in la charge gareeyo yacni in koronto la geliyo oo markaas orodka u sii wato macnaha isagoo ordayay ayaa bateriga laga bedelayay meesha dadka bani aadamkana biyaha iyo doolshaha yar iyo biscuitka la siinayay laakiin ugu dambeyntii yaa silada waa guuleysteen robotka asiga waa laga dheereeyay marka waxa la robotka soo adkay baa sanadka dambe bal isku day inaan naga dheereysid
waayahay inta ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgelyo